فلا يعتمه يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوتي في الله، بشهر رمضان maanta waa jimcada saddexaad waana 15 kala bar ilaahay uu noo dhameeyay. Allah naga aqbalo. waxa dhiman waa iska yariyeen markii inta dhimanaya intaan dhimanna dadku waxay ku mashquuli doonaan adduunyo. maxaa yeelay adduunyadii awliya laga dhamaaninba ilaahay subhanahu wa ta'ala bishaan wuxuu ugu talagalay in la dhibtoodo cibaadada lagu adkaysto. quraanka intii aad akhrin jirtay in ka badan aad akhriso nafsada ma ku ogolaanayso wal ogyahay. jus marka sii dhaafto juska labaad aad sii dhaafto biswa way daalaysaa. maxaa dhacay ramadaanka ka hor ma la barin cibaado ma la barin. dhibka jira waxay tahay cibaadada waxaan badsanaa bisha ramadaan kaliya. markii ramadaanka uu dhamaadana gadaal aan soo laabanaa. hadda waxyaabo badan aan dhaafnay waa isku raacsanay. filmaantii dad qaar iska dhaafay, heesihii dad iska dhaafay, dad timaha iska jaray, xitaa dad khamiis soo qaatay. marka bisha ramadaan in la isbedelo waa muhiim, laakiin marka bisha ay dhamaato hadii gadaal u laabatid waxaan noqotay ilaahay ma aadan caabudine bisha ramadaan caabuday. bishana way dhamaatay howlahaaga ku soo laabatay. taasna khalad waa. waxaa kale xasuusin mudan bisha ramadaan waxyaabaha dadka ka khaldan waxaa kamid ah maalinkii iyo habeenkii waa isku mid. bisha ramadaan ku jirta adiga. dadka qaar waxay ku leeyihiin inta afka la haysto maalinkii le heesta ay xaraan tahay, habeenkii mar hadii la furo filimka la fiirsan karaa, wax walba la sameyn karaa. ma aha. bisha ramadaan maalintii iyo habeenkii isku mid waay. waxaa loogu talagalay maalintiina afkaaga inuu xirnaado, habeenkiina salaatul leel aad tukato bis. wax kale ma loo talagalinba. marka walaalayaal isbedelka hadda aan sameynay waa arin lagu farxo aan joogtayno. inkastoo igaar la soo deen doono oo xabsi ku jiro oo waxaas dhanba ogolaaheen nabad in ilaahay lagu caabudo ma jecla. wuu xiran yahay hadda xabsi ku jira, xabsiga ilaahay ku jira. laakiin markii la soo daayo dadkii suuraadsana, dadkii uu meel ku ogaa Xuseen iyo Ali iyo Jaamac iyo Faarax u balansan wuu soo wadanaa kulli wax la ogyahay waa. dad badan oo bisha ramadaan tukan jiri waxa arkay markii ramadaanka laga baxo garaashkiisu iskaga jira, mootadiisii bajaajtu dhigtahaaya maxaa ku daari salaada wani mashquul ahayno. mashquul ma aha. ninkii la soo daayay gooso weyn la soo daayay waa ku habsaday, ma dhaqaaqi karo. maxaa awalka hore daciif uu ahaa, daciif miskiin iska ahaa, sheedaanka ka adkaan jiray. haduu ilaahay uu ka qabtay uu xoogo madax kor u soo qaaday. hadii sheedaanka loo soo daayina wuu raacay, saaxiibkiisu raacay. sheedaankana wuxuu leeyahay markii naarta la tago dadkii uu soo duufsaday Jaamac Faarax kulligooda naarta loo wada keeno, mimbar aan naarta dhexdeeda loo sameeyna, mimbarkan oo kale aa loo sameeyna wuu koraa waa khudbayna. في سورة إبراهيم إلهي معيري وقال الشيطان لما قضي الأمر شيطانك وحوله دونا مركي أرينك لطميو أهل الجنة لحكميو أهل النار لحكميو وحولي إلهي بلنقاضي إذن سمي أو أنا إنا إيهارتين جنة إذن بلنقاضي أنا وحا إذن دهي أنا إسراعة نار تنبوحنينا maxaa asay ilaahay hortiisa wuxuu ku balan qaaday ilaahu aan kaliya naar hay gelino leh waa soo shaqaysana dad badan soo wadana. ilaahay muxuu yiri balan waaya adi inta ku raacdo la amla anna jahannama minka inta ku raacdo adiga inta ku soo raacdo sheedaano annagu ilaahay wuxuu leeyahay balan waaya naarta idin ku shubaanay.
balankaas anagoo og shaydaanka waa raacne xagga markii la taga naarta uu kugu hubsadan wuxuu ku leeyahay aniga balanqaadkii aan ku soo qaaday waan kaaga baxay fa akhlaftukum ma ho quraanka waa la akhriyaa laakiin macnihiisa ma la yaqaan shaydaanka hadlaayo wuxuu leeyahay balna idin soo qaaday balanta waa idin kaga baxay maxay iga qaadi kartiin maxaa qaadi kartaa naarta uu soo geliyo asaga bas waa Allah naga koriyo markii dadkeeni wanaagsanaa ee hore ramadaanka sidee ahaan jireen saddex oo qarni oo ugu fiicnaayana soo dhaafay qarnigii nabi sallallahu alayhi wasallam uu noolaa waa xilligii ugu fiicnaa adduunka maxaa yeelay nabi maxamed aan noolaa ummadda hor fadhiyay sallallahu alayhi wasallam xabiibullah hadduu ka hor fadhiyo adduunka kale ma u baahnid aakhirna Allah noo kas inaan aragno dad badan aan arkeenin oo hadda adduunyada joogo nabi sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyaamo ma arkaysid yaa waaye waa ninka amarkiisa adduunyo aan ku qaadanin marka ilaahay ka cabsalo dhaho iskibrin jiray waawaalayaan wadaadkan iska dhaafarkiis wax u geeya male adduunka abdeeda leeyahay abdeedkaaga aakhiro nabiga ku tusiyahay marka nabi sallallahu alayhi wasallam darkiisii al-kawthar dadaa biyo ka cabaaya marka uu soo dhawaatana waa laga celinaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahu ummadeeda waa ii soo fasax biyaha cabaan ilaahu wuxuu leeyahay ummadaada kuwaan way ahaan jireen laakiin hadda ma aha maxaa yeelay gadaashaadii waxay soo kordhiyeen wax cusub maxay sameeyeen salaadii iyo dayaceen soo ma dayacna misbeenas ku sheegina darkaas yaan la ka celin darkaas qofkii hal mar wax ka cabo wiligiis ma oomo hal mar di biyo ka cabto wiligaaga ma oomaysid laakiin waa inaan nabi sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa ku dhimataa ogaada salafu saalix nabiga xilligiisa saxaabada xilligooda iyo taabiciinta xilligoodii wixii ka dambeeyay fitna bilaabatay Anas Malik ibn Anas Imam Malik oo kamid ah afarta madhab imaam kamid ah عشر وحكو أخرين جري مسجد كالنبي صلى الله عليه وسلم لكن بشهر رمضان مركي لقارو عشرة وأخرين جري كل واجوجين جري وحو أسو جيسين جري قرآن أخرين بس سفيان الثوري صام مركي لقارو جميع العبادات وكتاقي جري وحو أسو جيسين جري بس قرآن أخرس وحيابك الأقبان جري عشرة وأخرين جري ووجوجين جري عبادة إلهي أو صانك قرآن وأخرين جري بخاري إمام بخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة مالين والبا أو رمضان قرآنك ودمين جري صدنك جس هل فدي الو دمين جري هوايا دا شيء سغال بلو يكون دلتي wax ma ku dheero hal shay ku dheeriya bis cibaadadu macaan saday quraan kullama uu akhrinayo waa si iftiima waa si macaan sana anaga aksi anahay quraanka marka akhrinayno waa si daalina waa si caajisina صدنك جس هل فدي الو أخرناي تاسكري مكو إكاناي مايا تراويح مركي للدكادو تراويح مكو كبحو غوريغيس أو تغانا وحو أخرن جري 10 جس سدح مالن كو دميناي هوينكي سدح هوين قرآن كامرو دميناي مالنكينا هل مرو دميناي سعيد ابن جبير لبدي هوين بقرآن كو دميناي عاون وحو أخرنا 15 هوين دمنا 15 وأخرنا زبيد اليامي مركي رمضان كلا جارو كتابكو سو قبسن جري أصحابكو سو عن جري ويبدأ آخرين جرين وليد ابن عبد الملك سدح ذي هوين بقول لمين جري قرآنك مركي عادي وياه رمضان إيسن أهم با هوين كي بتوجه سو آخرين جري لكن رمضان مركي لجارو بيش مركي دماتو طبعا يتضبط جار أي قرآنك لمين جري أبو عوانة وحيري قتادة أركي ذاتك قرآن برايو تضودي هوين به هل مرو قرآن كدمينا يا رمضان كا مركي طبعا كدم بلا جارنا هوين والقرآن كبعد دمين جري هوين طبعا كدم به طبعا جرو دمين جري إمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام كان مذهب كأن هاي السنة إمام كيسا رمضان كي وحود دمين جري قرآن كا لحدا جر معنى المحاول ما أنتي نفر دمينا الله لحدن جزء أمانتي لآخرنا لحدن جزء أمانتي لآخرنا بشانك مركو دماغو لحدن مرو ختمي
wakiic ibn jaraax quraanka uu akhrin jiray salaatu duhana wuxuu tukan jiray 12 rakac duhurkii ilaa ay casrka laga gaarana salaad uu tukan jiray masaajidka iska soo gali jiray saacadaha markii duhur la tukado anaga meeshan ka seexano asaga duhurkii ilaa casrkii salaad tukan jiray casr markii la tukado cibaado kale iska qabsan jiray ibn rajab wuxuu leeyahay xadiis waxa soo arooray oo dhahayo quraanka 3 maalin ka yar ma lagu dhameen karo waajirta laakiin wuxuu yiri munaasabadahan oo kale ma aha waxa laga wadaa taas uu yiri qofka oo shaqo ka dhigtay oo 3 maalin ka yar wax ku dhameenayo oo sanadka dhanba shaqo ka dhigtay oo 3 maalin ka yar quraan ku dhameenayo ama laakiin wuxuu yiri waqtiyada oo laga faa'iideysto sida bisha ramadaan oo kale oo hal bil ah meelaha oo sharafta lama kala joogo Maka iyo Madiina oo kale waa in laga faa'iideystaa uu yiri hadaa 100 jeer dhameen karta xitaa dhameen maxay waqti aad kugu yar baadiga 29 maalmood ah haysataa intaas waxay ahayd quraan akhrintoodii marka aan u imaano wax bixintooda ramadaan siday ahayd sadaqadooda ibn Abbas wuxuu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam saxay ayuu ahaan jiray nabi wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam waxa duu haay la weydiiyo wiligiis ma dhihin haduu haayna waa bixin jiray haduusan hayninna saxaabada wuxuu dhihi jiray hebel u tag iga soo qaad waa lagu soo qaadi jiray qofka waa siin jiray adina maanta waxa laga yaabaa shay ahaysid walaalkaaga u dhimanaayo aleedahay asaga shalay wuxuu ii diiday kiila bur ii deemiyaan dhaay waa ii diiday anna maanta xamsiinay nabi sallallahu alayhi wasallam waa bixin jiray wax walba waa bixin jiray wax bixintoodii nabiga ku dayan jireen nabi sallallahu alayhi wasallam bisha ramadaan wuxuu wax u bixin jiray la yiri ka annama sida dabaasha la soo diray oo kale uu ka awood badnaa wuu bixin jiray ibn rajab wuxuu leeyahay shaafici baa wuxuu dhahay radiyallahu anhu qofka uhibbu lirajul ziyada biljudi fi shahr ramadan qofka bani aadanka waxa u fiican uu yiri inuu wax bixinta badsado bisha ramadaan ibn umar masaakiintu la afuri jiray عمر بن الخطاب يركيسا markii afurka la gaaro masaakiintu wuxuu ka soo wadan jiray masjidka oo afurka aan haysanin anaga markii maghribka assalaamu alaykum allah mir markaas aan u dambeysay ma oo yaa baahan yaa wax haysanin ma bajiraba waxa laga yaabaa inaad dadka dardarto mar la guriga igeeyay dhayd ibn umarna markii la tukado markaas wuxuu soo ururin jiray masaakiinta gurigu keeni jiray hadii cid ay dhahaan war ibn umar oo adii mooreysanta adii intaan qofoon wax loo keena guriga ma gali jirin habeenkaas asagana masaakiintu la joogi jiray ayaga waxooda cunaayeen asagana masaakiintu la baahan jiray habeenkaas timirta iyo biyo oo cunay iskaga jooga waaga markuu bariyana soonka meesha ka wadan jiray hadii wax uu waayo marna waxa dhici jirtay markuu yimaadaan qaybtii asaga loogu tala galay uu soo qaada masaakiintu u keenaa asoo isdhahayo digsiga xoog ku dambeeyo masaakiintu markuu u keeno eraashinka cunaan guriga ku laabana islaantii ilmihii digsigii waxa waaye salkay soo taabteen digsigu taga everywhere alxamdulillah oo dhaabiyo iska cabaa soonka meesha ka wadan jiray ayna afurka la hadii hal maan laga daahiyo guriga maanta nabad ma ka jirto mala seexanaya u maleena maanta naan sooneen maxaa ka wadin biilku waa dhiibanay dagaal wal celcelina ibn umar saasuu ahaa hadii qof oo wax weydiisanay u yimaadana uu iska siin jiray wuxuu haayo nimankan waxay ogaayeen waxay bixinayaan meesha u socdo halaas kul duuna bas walaalayaal nimankan afurku uu cunaayo markuu bixinaayo oo iska baahanayo meeshii waxa uu bixiyay meeshii u socdaan uu ogyahay laakiin anaga ma ogni waxa ogna inta inuu galaayo masquul markaan geenin waa ogna علي وحور رضي الله عنه وحور خفك بني آدم كأ حديب وكفكرة يودا وحور على شيء قليله أول مرنتي سوي حنا خني أودا إنه مسخول جيو فإذا كلام الأودا يونس ابن يزيد رمضان مركي لجارو وحوده هجري قرآن كهلا آخريو ده كان صدقة هلا سيو حماد ابن أبي سليمان بش رمضان شم بخلا قفوت أيو أفرنجري بالوالبو رمضان شم بخلا قفوت وأفرق هذا مال ساري جري بش مركي دمات رمضان مال انت عيدنا خفل بو حسين جري بقول درهم $100 waa macnaha ana dollar aan qana ma ho $100 siinay oo dharkii saciida ah 500 qofood lacagtoodana uu siin jiray ee sadaqana uu siin jiray Abul Abbas Hashim ibn Qasim wuxuu yiri waxaan soo booqday
أمير المؤمنين نينك اللي يراهدو مهتدي والدولة العباسية نينك قعنتك هاي واي أو إمادي وداي مدحوينها دونك واي waxaa isri wiil xoogo Ramadaan waaye dadka madaxdana afur fiican ay cunaan afurka guriyaha ay ka madaxda isku mid maamaho aan hadda aaminsanahay nin madaxa guriis wax lagu cunaayo adiga guriyaha ma laga cuno waxa aaminsantahay miis dheer oo intaas raashin la soo saarayo oo aku wareeraysid ilaa cishi wax la cunaayo ninkan taasa marka maskaxdiisa soo gashay wuxuu yiri ninkan aan u tago madaxweyne waaye caaw alla soo afuro wuu yimid ilaa ay galabtii la baabaashaalay qorax markay dhicirtay وصوب إنه صوب حوربي وحور فريسو وأنا لا أفور سامانته وأفريستي ودهاي رشين على كيني ودهاي وحلا كيني سحن كجيران موفو السوج جبيه يوال كلا كجرو عصبة يوال كلا سليد كجرو يوال كلا كجيران خل كان بيها عدك أو الودرسو عن صلاة سدحة سويل على كيني يموفو خلال أو ولي بموفو أدك أو السوج جبيه على كيني markaas wuxuu yiri ninkii waxa isdahay kan barma temple way waa afkal uu bilaabo raba Cambia jirto alaaba soo socotee waxaan si fiican ha u cunin xoogo ana san dhahna ma aha markii sabaa isku iimaan markii cambuul lagu soo dhigay waxa dheer tan waa laga dambeeyay inuu cabasha buuxinin ninkan sidii u maleeyay ilaa afur ma ka dambeeyo ninkan madaxweynaha muslimiinta waay wuxuu cuno fiiri ninki wuxuu ismi dadaaliyay muufado isku jabsaday u dhaay markaas wuxuu ilaa amiir markaas ano isdhahay u dhaay waxa la keeni doonaa mashhiyaat oo muqaddamaat ay yaqaan carabta waxyaabo oo la dhinaansada leh waaye waa la qaadi doonaa waxa la dhigi doonaa hay miiska isku yimaado aan sugoya u yiri markaas wuxuu ilaahay amiir muuminiin alam takun saa'iman adi soomaadan soonay maanta ha waa soonaa u dhaay wax ma cuntidu u dhaay war afur ma ka dambeeyo u dhaay inuu muufadan isliida cun wax كلمة لا إيصابة ولا أنيجا مرتد كاسة هنجين مدحوني يا شو دي موفي يسليت كو عشانوين أيوة كبقى إلا ده لا تكح الله ذا عمتين الله نفهم سيد مجاهد ابن جبرة وحويري صام كل شيء وحويري لا بشيء إلا قصام الله واي حنت يا بنت ذاك سوم ويسمع عن صامين عمر الخطاب وحوري أسجنه صانك وحوري راشين يبيه كلية ما هي وإن لقيت جا بنتا اللهوجة دارت بنت لو دارناي أو دارت إن كاسو هرسة كلية مرك إله سبحانه وتعالى إنه فهم سيو ده كان وحي أهاي نتوح فهمين أنا نسيح وفهمين الله إنه فهم سيو sidoo kale way duceysan jireen waxay ku duceysan jireen soonka Ilaahay inuu ka aqbalo maalin walba marka afurto duca jirto ducadaas akhriso nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhihi jiray dhahab ad-dama wa tallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah cunulayaan lagu degdegin walaalayaal ducadaas akhriso soonkii wuu dhamaaday xididadeedina way qoyeen maxaa ay biyad sama ajirkeen Ilaahay ha aqbalo dheh way 12 ka sooneed hadii lagu soo celiyo ka waranba diba qabta Ilaahay gacmaha kor u taag taad kale xiliga afurka ducada waa la aqbalaa qof walba muraad leh waxa Ilaahay weydiiso qofkii naag rabo qofkii beesa rabo qofkii aakhira jannah Ilaahay weydiisanayo qofkii deen laga rabo qofkii dhariid laga rabo qoorta lagu jiro kaasaab ugu daran ma hadda dhariida ugu daran mushkilada ugu taagan nimankii naagaha tooshantan dambe heshiis ma badana war aniga aragsanaan rabaa ma kaasaan rabaa isku heesta sanadkan ma ha nimanka ay khayr Allah siiyo sanad walbo ayadka qoorta ku galiyaba kaas wax la keenayaan ayana Allah khayrka waafajiyo laakiin 15 kan dambe guriyaha jihaada ka jiro ducay marka ducay Ilaahu jihaadka ayuu guuleeday shibay ducaysan imtixaana qoraxda markay dhacdo hal xabo timir cun biyo marka cabto iska dhig Ilaahu aleedahay waa u jeeda aragsan lagu heestay isahal leh Ilaahi waa keena Ilaahi wuxuu sina awoodin male Ilaahi waa bixina laakiin adiga wax tuug حشانين إلهي وحكي حشودا أدونكي سيود هاي الله إنه قعمرن سوء عليه إلهي وحكي حشودا با أما هذا لو سينا أما آخرة لو سينا كذا لو قلنا وحان دمان تاني وحانورون إن كان لو قلي حد لو هرمريو أو حاجة امتحان لو قلت بلي خطان
صلوا وسلموا على نبيكم المختار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة